الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد xildhibaanada qaranka gudoomiyaha gobolka saraakiisha ciidamada qalabka sida ciidamada xaqo-dirirka ee deegaanka ee Maxawisley deegaanka bulshadiisa kala duwan rag iyo dumarba dhammaan saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaa mahad iska leh marka hore Allah subxaanahu wa tacaala ثم waxaan u mahad celinayaa bulshadan ballaaran ee reer aqab duco ee maanta nagu soo dhaweeyay deegaankooda naguna sooriyeeyay runtiina aan kala kulannay farxad iyo damaashaad ciyaarihii dhaqankaana la ku soo dhaweeyay yacni xoolo tiro badan oonan qiyaasi karin naloo qalay inta waan ka mahad celinaynaa. sidoo kale waxaan ka mahad celinaynaa in aad tihiin bulsho iyadoon dawlad u imaanin ciidan qaran u imaanin iskood isku abaabulay markii la yidhi al-shabaab halala diriro horyahooda qaatay sahaydooda guryahooda kala yimid deegaankooda xuraysta gobonnimada markii la sheegaayo oo la isdheer yahay intaas waaye waxaa ku jirtaan dagaal waaye dagaalkaa ku jirtaan jihaad waaye ma aha dagaal oo sokeeye waa dagaal ah kula jirtaan cadow ku soo duulay deegaankiina iyo dadkiina iyo diintiina intaba cadowgaas taariikh ahaan waa fog yahay ilaa xilligii oo khulafaa u raashidiin uu soo jiray oo qaarkood dilay cadowgaasi dadkood dilay cadowgaasi cali bin abdalla baa ka mid ahay sayidina cali ayay dileen wax ka sukeeya dhaafaaya miyaa jira wax ka sukeeya dhaafaayana ma jiraan cadowgaas isaga ah cadowgaas marka kitaabadan noogu yaalla nebigana uu ammaanay cid kasta oo la diriirta oo disha inay wanaag iyo janno leedahay rasuulka wuxuu yidhi duubaa liman qatalahum ow qataluuh waxaa liibaanay qofka dila ama ay dilaan. sidoo kale waxaa jira xadiiskii dheeraa oo xadiisul khawaarij la yiraahdo oo gabagabadiisay ahayd fa inamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum fa inna fii qatlihim ajran liman qatalahum yowma alqiyaama. dil qof kasta ee la kulmaa ha dilo qof kastee dilana maalinta qiyaamo ajiruu ku leeyahay ilaahay agtiisa. marka gobonnimada aad samayseen cadowga aad iska dhaqaajiseen deegaankiina aad xuraysateen sharaftiinni iyo karaamadiinni aad la soo noqoteen taariikhdaa qoraysa. waxaa laga yaabaa walaal naga mid ah markii waa lala dagaalaa la yidhaahdo inuu cabsado. horta fulaynimada iyo geesinimada fulayga iyo geesiga isku hooyo isku aabbo waay magta iyo magaca waa ka siman yihiin laakiin maxay ku kala duwan yihiin geesigu taariikhou leeyahay laakiin fulaygu taariikh ma laha. geesiga taallaa loo dhisaa laakiin fulayga taallo looma dhiso. geesiga jiilba jiiluu gaaraa laakiin fulaygu jiilba jiil ma gaaro. ninka la dhihi jira khaalid bin waliid sayfullaahi almasluul saxaabigii jaliilka ahaa oo lagu naanaysay sayftii ilaahay ee gasha ka baxsanayd wuxuu yidhi waxaan galay boqolaal dagaal ah korkaygana kuma taalo taako meel la saaro ilaa waxaa ku yaalla waran iyo sayf iyo fallaar. muxuu ku gebagabeeyey hadalkiisa marka wahaa ana amuutu calaa firaashi haddana waxaan ku geeriyoonaa firaashkayga sariirtayda dusheeda kamaa yamuutu albaciir sida ratiga uu geeriyoodoo kaleete. yacni geeridiisa khaalid uma arkaynin gobonnimo maalintaas in wuxuu jeclaa isagoo cadowga ilaahay la dagaalaaya inuu ku baxo. wuxuu ka ciil qabaa inuu sariirta ku dhinto wuxuu arkaa sariirtoo lagu dhinto inay la mid tahay rati dhintoo kaleete. wuxuu ku gebagabeynaa marka uu leeyahay falaa naamad acyunuljawanaa
fulayda indhahoodu yeysan hurdin wuxuu ka wadaa dagaal laguma dhintay waxaa loo dhintaa waqtigaagu dhamaaday rasuulkana muxuu dhahay innahaa lamaytatun waahida faltakun fii sabiilillah hal dhimashaa dhimanaysaa jidka ilaahay ku noqoto marka gobonimada aan sameysay waan kaga mahad celinaynaa waqtigoo gaaban awgiis waxaan intaas kadib marka aan rabaa inaan ka digo oon idin sheego hubka aan haysano ee aan lacagteena kala baxnay awoodda ilaahayna siiyo cadowga aan isaga saarnay in aysan dhaqanin dhibaato dib noogu soo laabata yaanan la samaynin qof musaafura in jid loo galo yaan la ogolaanin dulmiga shabaab waa la qaaday laakiin dulmi kale dhexdeena yuusan ka imaanin qoryaha wixii aan u qaadanay cadow way ahaayeen maanta kadib cadowgaasaa dalka ka jira cadow aan kaas ahayn yaanan xabadeenna nolol kaga khasaarin cadowgaas aan ku dadaalno waxaan u mahad celinaa si gaara guddoomiyaha gobolka runtii saaki markaan salaad subax dukanay kadib aan soo baxnay halkaan aan soo aadnay haddana waad ogtiin waa habeen 9 saac aan soo gaarnay maanta oo idila qadaynay yacni dhulkaas ballaaran meedihu muusan sheegin ilaa haddana deegaano kaloo ballaaran oo aan gaari weynay oo dadkoodii xoolo qalan iyo barax ay la taaginaa jiro gobolka nagu dhacay oo aan gaari weynay marka waxaa la rabaa in meediyuhu uu tabiyo dhulkaas uu sheego guddoomiye waxaa haysatiin deegaanadii xureeyay dhul ballaaran haddana ilaalinayo ku naqnaqanayo sidoo kale waxaa haysatiin xildhibaan geesi ah oo mujaahid ah waxaan u malaynayaa caawa dhulka baale hal meeloo la haysto kuma taalo waxaan rabnaa marka hawshaas inay hor u socoto intaasna aan ku dadaalno xildhibaanka iyo guddoomiyaha gobolka iyo madaxda stateka iyo dowladnimada intaba inaad dhistaan waxaan idiin sheegaa marka shabaab dilkiisa noo bannaan yahay ilaahay iyo rasuulkiisaa noo banneeyey waxa ay sheeganayaanna diin maaha inaa ogaanaa la rabaa inay diin ahayn waxaa caddeen u ah hal arday ma jiraa aqabduco ku nool ay qur'aanka kariimka xifdisiyeen hal arday ma jiraa mayadu waa yartaa wax maa jira hal shiiq oo caalim ah oo ay soo saareen oo kitaabada ka akhriyay masaajidda miyaa jira haddana 15 sano joogeen soo ma qof 15 sano joogay ee hal arday oo qur'aanka la xifdisiiyey aan soo saarin ee hal shiikh aan soo saarin kitaabo akhrin kara maanta diin muu wadaa waxay wadaan diin maaha waa dulinimo waxay u socdaanna waa diinta inay burburiyaan dowladnimada inay burburiyaan dadnimadiinana inay ku cayaaraan idin duleystaan waxaan ballan ma noo tahay marka inaan ka dagaalno intaas diinta ma difaacaynaa deegaanka ma difaacaynaa dowladnimada ma difaacaynaa waa mahadsantihiin soomaaliya ha noolaato hirshabeelle ha noolaato shabeellada dhexe ha noolaato aqabduco ha noolaato aad waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu